weligay Soomaali haddaynu nahay su'aal weligeen ayaa leeyahay ma isweydiinin weligeen ma isweydiinay ma isna maxay waddankeena maxaa ka khaldan waayo waddankeenu horumar u gaari laayay 30 sano iyo ka badan ayaynu maxay is haysanaa oo isdilanaa aynu qac iyo buuq iyo aynu ku jirnaa oo dadkii maxay dhibaataysan yihiin ummadii dhibaataysan tahay Soomaalidii maanta meel kasta waddan kasta ka tagto Soomaali baa ku dhibaataysan weligeen ayaa leeyahay ma isweydiinay waxaas maxay nagu dhacay ma isweydiinay intaaynu xitaa meel fariisano xitaa male dib meel iskugu noqday oo ninna qofba intuu meel fariiso dib intuu iskugu noqday ma yiri maxay naga khaldan waay qabiil maxay u daba soconaa waay qabiil wuxuu tarayaa waynu ognahay qabiil hadduu wax tarayo bari hore wuxuu noo tari lahaa qabiil waa waxa halkaayna keenay qabyaaladu waa waxa halkaayna keentay waa waxa qeyrkeena naga reebay haddaynu Soomaali nahay haddaynu maxay waddankeena hagaajisan lahayn war waxa kale iska dhaafay hawadeena ma artay hawadeena ayaynu dadka maxay u bacayn lahayn inuu ka iibin lahayn waxa wax loo dhigo waxa fara badan oo aan adduunyada kale laga helin ayaynu haysanaa hawada kaliya ayaynu maxay iibin lahayn laakiin yaa garanaya qabyaalad baa dabad lagu wada wataa ninka sabab qabiilan waxba tireen buu ku jiraa kii miskiinka ahaayay maxay halka fadhiyay isagoo barta isagoo jingad yar oo xun oo maxay jingad yar oo xun isagoo ku dhex jira ayuu haddana maanta la soo taagan yahay maxay aniga reer hebel waxa muxuu ku taray adiga dhibaataysan jingad ku jira hadduu reer hebel wax ku taray marro wax ku taro adduunyada dadka adduunyada aanu waxaan aaminsanahay adduunyada waxa waddan jira waxaanu nahay dadka adduunyada waxa ummad jirta waxaan aaminsanahay waxaanu nahay dadka ugu liitaayeen haddii Soomaalina kulli isku wada dar amba Soomaaliland ka soo jeed amba Puntland ka soo jeed amba Jubbaland ka soo jeed kulli isku wada dar waxaanu nahay dadka ugu liitaayeen waayo haddaynu nahay dad maxay haddaynu nahay dad maxay Ilaahay ku xiran oo Ilaahay yaqaan oo Ilaahay ka baqanaya haddaynu nahay maanta waddankeenu saam ugu noqdeen waxaana sideeda leeyiri waddankaagu haddaad rabtid waddankaagu inuu wax ku taro adigu marka hore waddankaagu wax tar laakiin inagu waddankeena inagu waxba tireen ayaynu waxa la rabaa maxay waddankii ayaa wax laga sii raadinaya oo waddankan wuxuu umaad qaban maalin quraata geed umaad dhisin umaad beerin muxuu markaa waddankii muxuu adiga ku tari dirtii la beeray iyo wixii la beeray iyo wixii dadkii hore ku tabceen dawladii hore maxay lixninadii ku tabceen oo dhanna waa la wada burburiyay oo waa la wada qaatay oo waa la wada dhac oo waa la wada cunay meel kasta markaas Soomaalidu waxay la wada joogtaa wada dibris musuqmaasuq waddankoogii bay soo gubeen musuqmaasuq iyo ay ku soo gubeen markaas waddanadii kale waxay la imanayaan musuqmaasuq iyo inay maxay lacag dhacaan iyo inay wax istaba marayaan ay la imanayaan kaagii baa soo gubtay ka dadka ummadda kale dhisatay oo ummadda kale nabatay biliis u daaye waayo kaagii baad inta soo gubtay baad ka soo carartay intaad wixii aad soo dhici kartay soo dhacday ayaad haddana iskaga soo carartay markaas halkaas soo wada fadhiisanayaan markaas waxay oranayaan qabiil warkan madaxweynaha isku sheega ah ee kursiga raadinaya beritoolo kursiga markuu furo adiga kuma yaqaano hero no you kuma yaqaano adiguna waxa rabtaa diyaar bad waxa ku tahay inaad u dhimato oo tiraado maxay ina waa reer hebel godka markuu lagu galiyo ma wuxuu kula qabanaya su'aalaha Ilaahay lagu weydiinayo ayuu kaaga jawaabaya waa maya macdaabu kula galaya waa maya wajannadu ku geynaya waa maya aad markaa maxay aad ugu maxay aad leedahay aad reer hebel u tiraada waa la soo kacayaa waa la soo baxayaa waa la soo quraacanayaa laba xabo canjeera saddex xabo canjeera wixii la helay la soo cunayaa waa la imanayaa si loo soo socdo waxa la soo hor fariisanayaa maqaayad hortid halkaas waxa la soo fariisanayaa hebel baa saa yiri ana reer hebel yahay ana kana reer hebel marmarka qaarkood Soomaalida dadkeena waddankeena marka tigtid waad qaraacmaysaa anuu markaan airport Hargeysa ka tago markastoo airport Hargeysa arko waan qaraacmaa waayo waxaan u qaraacmaa sida airportada adduunyada kale u dhisan yihiin ee dadku airportadooda u horumariyeen iyo keenu sidii yahay isku bixiyaaca 30 sano ayaa halka la taagan yahay leeyahay ixtiraaf war ixtiraafka waxa ka horeeya adigu marka hore isdabar